kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxaa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyey ee jamhuuriyadda Jabuuti ka soo baxaya iyo wadahadaladii dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland u dhaxeeyay ayaan war idinka hayaa iyo sidoo kale wararka dhinaca markaasi been abuurka faraha badan ee arrintaasi ka dhashay qodobada kale daawadayaal idin hayo dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan waxaa kamid ah ugu waaweyn dalka Turkiga oo ku dhawaaqay in mid kamid ah talaabooyinka ugu waaweynaa ee 2023 uu hansanayay gaaray asagoo dalkaasi uu ku siqayo inuu heshiiskii 100 sanadood ka taqaluso qodobada kale daawada ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda dalka Yemen waxa laga xaday bilaayin dollar oo lacagtooda ah si xoog ah lacagtaas looga dhacay cid ka dhacday dalka Liibiya wuxuu dalbanayaa in xabaal wadareedada laga soo faagayo magaalada Tarhuuna loo gudbiyo maxkamadda dambiyada dagaalka baadhe ee ICC dagaalkii ay isku dhici gaadheen dalalka Mareykanka iyo Iran ee toddobaadkii horena maxaad ka ogtahay warbixin ayaa laga helay waa qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan gaanka gandino oo daawada dabcan waa 15 bishii June horta 20 aan ku bilaabay isla markaana ugu horeysay dalka Ruushka ayaa waxa ka dhacay masiibo aad u weyn kadib markii saliid ay ku daadatay deegaan ku yaala badda Antarctica agteeda halkaas oo la sheegay in uu geystay markaasi waxyeello aad u weyn shidaalka halkaas ku fathay qaar kamid ah wabiyada ayaa la sheegay in ay la circirayaan haatan saliid ku qubatay iyadoo u muuqata in masiibo aad u weyn halkaas ka dhalatay saliida waxaa la sheegay in ay wabiyada halkaas ku yaala ay dhibaataysay iyadoo la arkay in jawiga iyo muuqaalka wabiyadu isbedeleen arrinta ayaa la sheegay in markii hore dhan dawladdu ay qarinaysay iyadoo la sheegay in dhacdada masiibada ah ay dhacday 29 bishii hore ee May waxaana haatan la sheegay in ay masiibadu sii socoto deegaanka Siberia ayaa la sheegay in ka badan 20,000 oo tan oo saliid ay ku daateen wabiyada haatan wararka ugu dambeeyay waxa la arkay iyadoo dawladda dalkaasi Ruushka ay isku dayayso in ay arrinta xakamayso wabiyada la yiraahdo Daldakan iyo Ambranaya ayaa la sheegay in waxa qulqulaya ee dusha hayhaabayo dhan ee haatan ay saliidihiin inta badan saliidaha ayaa daata keenana masiibo aad weyn madaxweynaha dalkaasi Russia Vladimir Putin ayaa amar ku bixiyay in degdeg loo xiro dhammaan saraakiisha dambiyada galay ayuu yiri ku saabsan in ay sahladeen arrinta maamulkii deegaanka ayaa la xirxiray isla markaana jeelka loo taxaabay iyadoo lagu dacweynayo in ay deegaanka aysan ka taxardarin qorshahan ayaa u muuqda haatan qorshe masiibo weyn arrimaha noocaas oo kale ayaa waxa ay ka dhacaan inta badan dalalka waaweyn iyo kuwa yaryarba ayagoo ay keenaan masiibooyin muddo dheer qaata oo deegaanka waxyeello weyn u geysta kaasoo waxyaalaha uu geysto aysan kaliya ahayn in uu kalluunka iyo dalagga ku jira wabiyada ama badaha uu dilay sidoo kale waxyeello weyn u geysto xataa dhirta iyo waraabka ay ka helaan biyaha wabiyada halka kala socotaan daawada wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda daawashana qiimaha leh haatan Jabuuti iyo wararka ku saabsan jamhuuriyadda Jabuuti shirkii halkaas ka soconay waxaan rabaa daawashana qiimaha leh horta marka horeysa waxa cadaatay in dadka Soomaaliyeed looga faa'iideysto marka ay shirarku ku qabsamaan luqadaha kale tusaalahan shirkii shalay ka dhacay Jabuuti ee dhinacyada Somaliland iyo dowladda federaalka ay isugu yimaadeen waxa halkaas madaxdu ay ka jeediyeen khudbado luqadda Ingiriisiga ku qornaa taasi waxay keentay in dadka ayagu warbaahin ha noqdeen ama dadka wararka loo yaqaan fake news ka wararka beenta ka macaasha ha noqdeen qof walba sidoo jeclaa uu tarjuntay taasoo horfadhi media aad uga digaysay ama qaarkood ha ka noqoto inay sidaas ka tahay ama ha u bareereenba iyo sidoo kale in warar aan la isla ogolayn la shaaciyay oo warbaahinta lagu daadiyay sida daraadeed ayadoo oo ay muuqato in baahi weyn loo qabo waxaan rabaa inaan nuxurka labadii khudbadood ee madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha dowladda federaalka ay ka jeediyeen shirka horta labadii khudbadood mid walba nuxurkeeda aan idin sheego ayadoo shalayna wararkeena aan si hordhaca ama si kooban u sheegnay nuxurka khudbadda madaxweynaha Somaliland waxa ay ahayd hadan horeysiyo waxay ahayd in ay Somaliland 1960 maanta oo kale 11 casho ba ka harsan 1960 guuradaas 16 June in ay noqotay dal xorriyad qaatay qaramada midoobeyna ogolaatay sidoo kalena 35 dal oo kale ay aqbaleen wasida madaxweynaha Somaliland waxa ka dhigay weeye qodadiisi kowdi luuliyo sanadka 1960 kiina ayaga oo jamhuuriyad ah Somaliland oo jamhuuriyada ay ku darsadeen Soomaaliya ayuu hadalka u dhigay sida daraadeedna ay hadeerto doonayaan inay ka soo noqdaan Somalilandna 30 sanadood dhibaato ay ku haysay Soomaaliya oo ay u diidaneed inay go'do inay horumar gaadho iyo in ay qadaraheeda qabsato marka sida daraadeed waxa uu Muuse Biixi sheegay hadeertana inay u baahan yihiin in labada dhinac loogu garnoqo arrin ku qotonta laba dal oo isku tagay hadana kala tagay
waa nuxurka hadalka madaxweynaha Somaliland intaas ayuu ahaa marka inta ugu muhiimsan way marka waxa kale oo la iska soo tagaa araarashada faraha badan intaas weeye macnaha inta lagu wada hadal siiyo madaxweynaha Soomaaliya isaguna hadalkiisa waa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu yiri isaguna ama hadalka nuxurkiisa uu ahaa in uu halkan u joogo in ummadda Soomaaliyeed la isku soo celiyo la isku ramadeeyo isla markaana la iska dhaahiyo wax kasta oo laga wada hadli karayo isaga hadalkiisu inta uun buuxa labada qof marka ku kala cad wixii inta dheer hadallo fara badan oo aad aragteen iyo qoraalada faraha badan wixii ka runa ayaga oo noqon doona ama waan u tagi doona sidoo kale dooda ku saabsan inay Somaliland ay 30 sanadood dhibaato kala kulmaysay Soomaaliya iyo dooda kale ee ah in ay Somaliland dal 35 dal aqoonsadeen qaramada midoobay diiwaan gelisay oo aqoonsatay oo ahaa taasna hadeerto doodeeda gelimiino labadaas arrimood labadoo mid walba waxay ku cad yihiin taariikhda way 30 sanadood dawladda Soomaaliya ma jirinba oo dawladnimada Soomaaliya kama jirin waxaana 8 sanadood ugu dambeeyay dawladaha Soomaaliya lagu qiyaasay ama dawladda Soomaaliya soo noqotay lagu qiyaasay sidoo kalena arinta 1960 warkeeda waa dabcan dadka inta badan wax akhriya wax bartay ama da'yar ha ahaadeen muddo noqdeen taasna hadeerta warkeeda gelimiino mar kale inuu falanqeyn doona ama dad waaweyn oo falanqeeyeen keeni doona insha Allah halka u dhaafmino qodobka kale muhiimka waxa weeye hadalka isaguna halka ka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle wuxuu sheegay oo hadalka nuxurkiisa isaguna waxa inuu halkan isugu keenay labada dhinac si ummadda Soomaaliyeed soo la raadiyo loona xaliyo kala duwanaanshaha labada dhinac si salmi ah wada hadal taasna halka kaga tag maadaama mid walba ay luqad gaar ah luqad qalaad ay ku qorneen hadalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa asagana ka soo qaadanaa nuxurka intii naga khuseysay inaga kani waa shir ay isugu yimaadeen xubno ka wada tirsan hal qoys ayuu ku bilaabay hadalkiisa hal qoys ayaa halkan isugu yimid waligeena waxaan sheegayay in wadamadeenu ay isku xidho hal xudun ayuu mar kale yiri waxaan u aragnaa in ay shirkan annagana nalagu casuumay ay yihiin dad isku qoysa oo walaalo ah oo wada dhashay geeska Afrika oo dhan ayaana saas wada ah ayuu yiri waxaan rabnaa walaalayaal in geeska Afrika waxa uu soo maray muddo dheer ay ka jirtay dawlad xumo iyo hoggaan guul daraystay waxaan la qabsanay burburka qaraxyada iyo muddo 10 sano ah dhaqaale xumo baahsan ayaa jirta colaado inay aqli xumo ay keentay ayuu yiri oo inagu riiqday ayaa ina saameeyay arintaas inaan wax ka beddelno oo aan u dhaqaaqno waa cusub ayaan rabnaa hadalka kale uu ku daray wuxuu sheegay hadii Soomaalidu ay isku tagto in ay noqon doonaan dadka geeska Afrika iyagu qabsada waayo wuxuu yiri dadka Soomaaliyeed waxa ay yaqaanaan oo hiba u leeyihiin hal abuurka ganacsiga iyo sida ganacsiga looga dhax abuuro meel kasto ay tagaan waana fursad ugu weyn ee u banaan ayuu yiri hadii ayaga wada jira oo quweysan oo nidaamsan oo dawlad adag leh ay yimaadaan dalalka kale oo dhan waxa hubaala inay ganacsigooda la wareegi doonaan hogaankana ayagu qaban doonaan maadaama ummadan ay yihiin ummad aqligoodu aad u sareeya ayuu ku sifeeyay intaas ayaan inta kaga tagaya qodbadihii waxaan u soo jeesanayaa daawadayaal warmurtiyeedkii haddaba warmurtiyeedkii oo qolo walba meel ka tuurtay oo runtiina waxaad moodaa dadka qora af Soomaali baa qof walba intuu af Soomaaliga intuu bartay inuu qoro ayuusan garanaynin in labadan garboodna ay ka saaran yihiin malaa'ig حساب ay ka damayso mustaqbalku uu leeyahay oo san garanaynin qof uun ka farxi caadifadaysan oo bay arintu ka noqotay laakiin arinta dhaxdhaxaad ku eeg qadiyadan u yarkaadi u qabooj xagga xumaanta ha ka eegin waxa soo dhan ma maraso horta waxa hubaala in warmurtiyeedka ay ka dameeyeen kulamo kale ay noo soo socdo ka dameeyay waraysi ay noo soo socdo deebaydmo laakiin warmurtiyeedka rasmiga ahaa ama sida warmurtiyeedka loo ugu fiican loo fasiri karo si kooban waxa weeye sidan waxa iyada oo ay ku timid dadaal ay garwadeen uu ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda aan walaalaha nana ee Djibouti hogaamiyaasha gobolka ay ka mid yihiin balidi mudane ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Ali ra'iisul wasaaraha Ethiopia mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland waxa kulan wada tashi ah lagu qabtay caasimadda Djibouti bisha 14 waa shalay June 2020 si gacan looga geysto sidii hogaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ay dib isla qaadi lahaayeen wada hadaladii iyo xiriirkii ka dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland hogaamiyaasha ayaa garowsan muhiimadda doorkii ay Djibouti ku leedahay dadaalada nabadda iyo dhisidda nabad ku soo dabaalida gobolka ka hor inta aan la isugu iman kulanka taariikhiga waxa hore u soo qabsoomay dhowr wada xaajood oo natiijo badani
aanay kasoo bixin dabcan waa kulamadii hore ilaa iyo soo socday Dubai ilaa iyo madaxweyne Sinaan iyo xilligiisii iyo madaxweyne Shariif soo socday bal halkaas laga hadlayaa ama la tibaaxaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland waxay isla garteen in guddi farsamo oo ka kooban labada wafti ay si ambaqaadaan wada hadallada u dhaxeeya labada dhinac isla markaana ay ka sii shaqeeyaan arrimaha wali dhiman ee la isla qaatay Khurfadhi Media shalay bay warka idin sheegtay inay arrimuhu yihiin labada madaxweynena ay soo noqon doonaan sida ugu dhaqsaha badan kulamaduna ay sii wadi doonaan gudiyo heer sare ah wada xaajoodkuna ay noqon doonaan waxyaalaha soo baxaya wax gudiyada damay soo saaraan fiiri marka waxaan war kale ilaa xalay idagahaydee lidkaga garaacay ilaa saaka galinkii hore inay waxba ka jiraan yihiin baydiicad daawashana qiimaha leh waxaan doonaynaa mar walba in aynu wararka anagu keenana ay yihiin kuwo xogtoodana in loo noqdo leh ilaahayna looga baqayo ummadda Soomaaliyeedna looga xishoonayo in loo sheego wax kasta oo caadifad ku salaysan iyo waxyaalaha lamid ah kulanka ayaa sidoo kale soo jeediyay in Djibouti ay noqoto ayaa leeyahay fiiri waa wali umurteedkan sii wada madasha shirka farsamo ee labada dhinac Djibouti ayaa hadar hooy u noqon doonta macnaha halka waxaa ka cad in kulamadii Turkiga iyo Ethiopia iyo halka lagu soo ururiyay waxaa laga maarmaan ah in danta labada bulsho ay udub dhaxal u noqoto hanaanka wada hadalka kulankani wuxuu ku boorinayaa dhammaan gobolka qaaradda iyo hay'adaha caalamiga inay taageeradooda u muujiyaan hanaanka kulankan ayaa ku qabsoomay ayaa leeyahay 14 June 2020 warmutiyeedka intaas weeyay dunidan waxa laga codsaday inay taageeraan oo dabcan ay taageeraan laakiin ay dhaxdhaxaadiyaan meesha kuma qorna sidaa daraadeed waxa halka ka cad iyaduna in aysan jiri doonin ama ay goobta aysan joogi doonin gudiyo mar walba dhax fadhiyo oo shisheeya laakiin laga yaabo waxyaalaha qaarkood markay dhamaadaan in gudiyo farsamo ay kala shaqeeyaan arrimaha in kulamada kale iyo arrimaha kale oo soo noqon doona daawashana qiimaha leh wararka wacala dhinaca dunaasiyada qodobada kale ku siqo ee daawadayaal gaanka gandino oo dhan dalka Turkiga wuxuu ku dhawaaqay gordhaweyto inuu qaaday howlgal ugu yeedhay howlgalka loo yaqaano Claw Eagle kaas oo ka noqon doona gobollo badan ay ku baahi doonaan weeraro culus oo ay ka dhacay dalka Ciraaq dhinaciisa waqooyi saacada kadib markii uu dalkaas ka soo noqday ninka dalkaasi dhinaca amniga qaranka ugu sareeya ee madaxa sirdoonka ee dalkaasi oo horey warbixin aan ka diyaarinay kulan qarsoodi oo ku tagay magaalada Baghdad dalka Ciraaq uu ka soo laabtay dowladda dalkaasi Turkiga ayaa waxda gaashaandhigga gaar ahaan wasiirkeeda General Hulusi Akar waxa uu ku dhawaaqay in taliska ciidanka oo dhan ay goob ka sameysteen duleedka xuduudda labada dal ee dhinaca waqooyi iyadoo la saadaaliyay goobaha waaweyn ee saaka wadooyinta culus ugu bilaabay howlgalka cusub ee loo bixiyay operation Claw Eagle waxaa la sheegay in gobolada ay ka mid yihiin Sinjar, Qandil, Karakach, Sab, Avizin, Basiyan iyo Hakuk ay ka bilaaban doonto duqeyntu ka bilaabatay duqeynta goor hore ayadoo la sheegay kooxda PKK loo yaqaan ee Kurdiyiinta halkaas laga eri doono arintan ay Turkiga ku soo beegan ayagoo sheegay in ay si weyn u riixeen una clear gareeyaan ama u nadiifiyaan xuduudda ay la wadaagaan dalka Syria iyadoo Turkigu haatan uu sheegay inuu doonayo shacabkiisu ay nabad ku noolaadaan taliska ciidanka uu kamid yahay taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida dalkaasi General Yasir Guler taliyaha ciidanka lugta ee dalkaasi General Umid Dundar taliyaha ciidanka cirka ee dalkaasi General Hassan Akukakis iyo taliyaha ciidanka badda dalkaasi Adnan Asbal ayaa dhamaantood ku sugnaa goob laga ahmaamulayay howlgalka culus ee diyaaradaha dagaalka ee F15 iyo F16 iyo diyaaradaha ciidamada drones ka qayb qaadanaya qaybta dambe wararka wacala dhinaca dunaasiyada daawadayaal